salaamullaahi afur wanaagsan kusoo dhawow daqiiqadaha ramadaanka oo aan inta bisha ramadaan ay socoto kusoo gudbin doono nafta iyo ramadaanka. magacaygu waa tahliil colaad. waxaan ku bilaabayaa ku nafisidda soonka. mararka qaar noloshu waa culays, shaqo, walbahaar iyo fikir, daal joogto ah iyo culaysaad kale. laakiin soonku waa fursad uu qofku ku nasto maskax ahaan, nafsiyan iyo ruux ahaan, sidoo kale jir ahaan caafimaad. tiyo ay dheer tahay in waajibaadka alle uu qofka gudanayo, fursad uu u helayo in loo dambi dhaafo, naarta laga xoreeyo, haddii alle u qadarana uu qofka helayo ama haleelayo maalinta 1000 sano ka qiimaha badan. 4 qodob ayaan doonayaa inaan halkan kusoo gudbiyo, taas oo aan isleeyahay naftu waxay u tahay nafis. soonku wuxuu joojiyaa mashquulka joogtada ah ee cunidda iyo rabitaanka. maskaxdu way nasataa, fikirkana wuu yaraadaa. qofku wuxuu helayaa waqti uu naftiisa u fiirsado, waxyaabaha xun uu ka celiyo, waxyaabaha wanaagsanna uu markaasi ku dhiirigeliyo. qodobka labaad waa xakamaynta nafsadda. marka aad ka adkaato gaajada iyo haraadka, waxaad baranaysaa samir iyo xakamayn. tani waxay dhistaa kalsooni iyo awood gudaha ah. qodobka saddexaad waa nafis ruuxeed. soonku waa waqti qofka uu u noqdo alle, dacwo iyo toobad ayuu la yimaadaa iyo xusuus. qalbigu wuu degayaa, ruuxdana way iftiimaysaa. xusuusin iyo mahadnaq waa qodobka afraad. soonku wuxuuna xusuusinayaa nimcada aan haysanno. waxaan durbo garowsannaa dadka ay nimcadaas ka maqan tahay waa kuwa aan soomanayn. wuxuu kobciyaa naxariista iyo mahadnaqa. soonka ma aha oo keliya ka tegidda cuntada, cabidda. waa fursad nafis iyo isdaahirin iyo bilow cusub. ka faa'iidayso bisha barakaysan ee ramadaan. adduun iyo aakhiro waad ku liibaanaysaa.